madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay kulankii ay wada yeesheen injineer Faysal Cali Waraabe Khaliif Cali Galeer iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Coomaade madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay shirkii Soomaalida uga socday magaalada Brussels ee dalka Belgium oo dhawaan la soo gabagabeeyay waxaanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay in gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale Professor Cali Khaliif Galeer madaxweynaha Khaatumo aanay Soomaaliland ku matalaynin ka qaybgalka shirkaasi ka qayb galeen isla markaasina ay fajac iyo amakaab ku noqotay inay ku dhaxarkaan madashii shirkaasi uu ka yahay shirka Brussels nima waxa loo qabtay Soomaaliya iyaga laga hadlay meel kuma inaan lahayn waan isku diiday qaabkii loo qabanayay waayo dawladaha qabanayay waxay doonayeen inay u arkaan inay Soomaaliya mid tahay oo la siiyo waxa loo xaltinayaa special arrangement war special loo garabayo laba dawladood istaagayaan nimanku ma qabsan halkan aanu ku go'aamin anagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xorriyadii hadana ama sida laba dal loogu tilgalayo oo wax soo laba dal oo wax loo wada qabanay ahaada hadii kale iyaga u dhameeyo inaguna marka ay soo baahan u hadli doonaa warna garu soo garbo arkan naagumay gacan marooji dal badan kama keenin sidii bay yiraahdeen waxa timid deeqda waxa la yiri lacag lagu qaybinayaa maxay uga hareynaa horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gobonimadiisa seesan mayna rabtaa dadka iyaga waxa lagu aansaray inaan gaar ah markaa UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala hadaan anaga toos wax loo siiyay ma qaadana sandareele cid oo soo martay dadkuna ku tirsan wax ka badan lacag baan u horay go'aamada iyo dalka in dib loo soo celiyo lixdan ku joogay marka taana saasaan ugu sheegno war adduunka ma hadlaynaa qadiyad iyo ish iyo ummad basiirka laga hadlayaa lacagta idinka hore cidaasina saana idinka waa wixii jeebkiina ku jiray annagu mowqifkaas aan loo ninka nagu caawinayo ee waxaan ugu tarsanayo ee reeshin kii kaloo waad baxsantay cidda dawsaas iyadoo halka taagan oo caalamku og yahay oo ku heshiisnahay oo ku kala faasxisnay waay annagu xil saaray waxa tagay gudoomiyaha xisbiga oo maanana weyn nagala mutashan talafoon aan lahayn waana waxa nagu cusub وانا أهل بحر أنت بلوغ دب الإسقاط كونتاس سجى عيد لسبعة تونا أما كاك بين الوقت حتى ما أنا وين البحر سوى فرماتنا شو أما كاك بين الوقت ما أذكرت والله أركض أنا كنت بس إذا تصلنا كيري محمد فارح عماد ورك 40 SBC هرجيسة